فيروسka corona iyo cudurka ka dhasha ee COVID-19 wuxuu ku dhacay dad ka badan 1 milyan oo qof oo ku kala nool qaaradaha adduunka. haddana Soomaaliya ayuu soo gaaray, fadlan iska ilaali qoyskaaga oo ka ilaali bulshadaada. calaamadaha ugu badan ee aad ku garan karto waa qufac qallalan, neefta oo ku dhibta, qandho daran, laakiin dadka qaar halis weyn ayay ku tahay, gaar ahaan duqeyda iyo kuwa horay u xanuunsanaa. fayraska waxaa badanaa si fudud la isugu kala gudbiyaa dhibcaha ka soo baxa marka qofka cudurka qaba uu hadlo, qufaco ama hindhiso. dhibcahaasi waxay afka ama sanka ka geli karaan dadka meeshaasi ka agdhow, sidaasina waxa ay ku qaadi karaan cudurka. sidoo kale fayraskan wuxuu dul degaa walxaha nagu hareeraysan ee aan nolosha u adeegsanno, kadibna gacmaheennu waxay taabtaan meelahaasi oo ay si fudud uga soo qaadi karaan fayraska. si aanay taa u dhicin, waa inaadan taaban indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga ilaa aad gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaqdo. marka aad qufacaysid ama aad hindhisaysid, afkaaga ku dabool laabatada suxulka ama isticmaal istiraasho, kadibna ku tuur qashinka. sida ugu fiican ee looga hortagi karo faafidda fayraska waa in had iyo jeer aad gacmahaaga si fiican ugu dhaqdid biyo iyo saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi. ka fogow dadka ugu yaraan 1 mitir ama in ka badan. dadka gacanta ha ku salaamin. ha tagin goobaha dadka badan sida maqaayadaha shaaha, shaleemooyinka, garoomada kubadda iyo hoteelada. guriga joog haddii aysan xaaladaada caafimaad fiicnayn. haddii aad ka shakiso inaad la kulanto qof qaba cudurka COVID-19 waa inaad guriga joogtaa muddo 14 maalmood ah. sidoo kale kuwa guriga kugula nool waa inay kula joogaan si aanay fayraska ugu faafin bulshada dhexdeeda. haddii aad dareentid in neeftu ay ku dhibayso, fadlan wac nambarka caawinta dawladda ee 449. la soco oo raac tilmaamaha hay'adaha caafimaadka dalka iyo habraacyada ay dawladdu u soo saarayso sida joogtada ah. cudurkani waa dhab, waa xaqiiq jirta, ma laha dal gaar ah ama cimilo u gooni ah. waa laga hortagi karaa, balse daawadiisa weli dunida ma soo saarin. si wada jir ah ayaan uga adkaan karnaa fayraska. fariintan waxaa idin soo gudbinaysaa dawladda Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هان داود يال ميلول بعد جوكتان كسر وهذا وركة تلفزيون كعالم جاه عبد واق تي في وهذا هانو كلاين كجي ما ده حرون تسلحية مجال عبد واق وركة وحمانتي هل كان ديار وجاه أنا جوا ما بشيء عصام عليه قضى بدها وجود الرون وركة يجنا واحد غيب كع دولة الصومالية أو شيكتين يدب السعوديين دون أنتم مواطنين صوماليين أو كحن من دلك السعودي جا معمول كدق ماذا عبد واق وكوفش المها كنت قاد كي كسر قال يدين عايتوبيا shirkadda xoogga korontada ee beeka ee magaalada Muqdisho oo maanta ay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran u sameysay. maamulka degmada Balad Xaawiye kan gobolka Gado oo beeniyay shakhsi la sheegay inuu caabuqa corona qabo oo ku sugnaa magaaladaasi Balad Xaawo. qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal warkayaga ee u diyaar garooba warka faahfaahsan. markale isku soo laabasho wanaagsan daawadayaashana qiimaha law iminkana warkii oo fidsan haddii aynu ku bilowno maamulka degmada Cabud Waaq ayaa waxa uu ku fashilmay inuu xakameeyo qaadkii ka soo galay dhinaca Itoobiya iyo waliba gaadiidkii Muqdisho dadka ka soo daldalayay. amarra ka soo baxay toddobaadii tagay maamulka degmada iyo laamaha amniga ee degmada Cabud Waaq ayaa waxa lagu joojiyay jaadkii ka soo gali jiray xadka Itoobiya. dhanka kalena amarra kale oo ka soo baxay isla maamulka ayaa waxa lagu hakiyay gaadiidka magaalada Muqdisho oo maalin walba dad badan soo galin jiray magaalada. ase yeeshee amarradaasi ayaa haba yaraatay wax ilaa iyo xilligaani ka fulay aysan jirin. magaalada waxa soo gala subax walba baabuur fara badan oo Itoobiya ka soo galiya qaadka, kuwaas oo degmooyinka Galmudug qaarkood looga sii gudbiyo Cabud Waaq. waxaa magaalada maalin
walba dhanka kalena soo gala 4 baabuur oo midkiiba markii uu yadhahay uu 15 ruux wado ayadoona tiro ahaan maalin walba dadka soo gala magaalada Cabudwaaq ee ka soo gala dhankaasi Muqdisho ay gaarayaan ilaa 60 ruux arintan ayaa ah mid muujinaysa foojignaan la'aanta bulshada degmada Cabudwaaq iyo waliba maamulkeeda taas oo aysan ka foojigneen cudurka dunida halakeeyay ee coronavirus way caddahay maamulku inuu soo saaray maamulka heer degmo iyo mataqaanaa galmudug state inay ka soo baxeen mataqaanaa tillaabooyin lagu qaadaa lagu yareynayo xanuunkan covid-19 sida mataqaanaa in la joojiyo jaadkii oo laga soo saaray mataqaanaa ganax laga soo saaray in laga soo mataqaanaa isku socodka baabuurta la joojiyay ay dhahay maamulku waa joojinayna dugsiyadii mataqaanaa quraanka iyo malcaamadii in la xiray oo la joojiyo dhammaantood mid wax arrintaas ka hirgala ma jirto malcaamadii sida loo dhiganayaa baabuurtii 10 baabuur 7 baabuur 8 baabuur baxaysa average maalinka celcelis ahaan imaanaysana oo socodkii hawada ka xirmay ayaa dhulka ku laba jibaarmay waxa ay qaadayaan waa wax laga maarmi karo dad bay qaadayaan keenayaan waxa xanuunka gudbinayaan waa dadka marka arrinta ayada ana xol kama qabsoomin jaadka aad ogeyd in la gubay maalinka oo horeysay oo booliska ay gubeen sidii lagu soo laba jibaaray iyo ka badan 3 jibaar 4 jibaar ku yimaada marka dhammaan maamulkii wixii ay sheegeen in laga qabanayo arinta kulay bulshadu ay garan waa qabtaa marba waa la wacyi geliyaa qoraal ahaan waa la wacyi geliyaa laakiin tilaabooyin sharci ah in la qaado ayaa loo baahan yahay dhanka kale waxa aad u yar wacyigelinta ay hesho bulshadu ayadoona dadka shakhsiyaadka ah ee naftooda ka taxadaraya isticmaalana agabka looga hortaga caabuqani ay bulshadu siyaabo qalafsan ay ula dhaqmaan ayna ku dhahaan hadallo inta badan qofkaasi niyada jabinaya sida uu noo sharaxayo mar kale Farax Cabdilla Xasan oo ah gudoomiyaha ardayda jaamacadda ummadda ahna dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan degmadani waa maasan tahay taas oo wax iska cad hadda markaan soo socday oo gloveska iyo maskayga aan soo xirnaa oo aan wadada soo hayay runtii mataqaanaa dad badan baa ila yaabana maxaa xanuunka ku dhacay mana ahan qof markuu xanuun ku dhaco inuu xirtay waa inta xanuun ku dhaco waxa la dhahaa universal precautions ama protective measures ah bilowga qof inta xanuun ku soo gaaraya lagu talgalay inuu xirto waayo xanuunkan xanuun daawo ma aha waa xanuun ka hortag marka bulshada way kula yaabaan marka alaabtan xiran tahay ayagoo og waliba inuu maanta xanuunkan ay dhibaataysa ayagoo marka waxaan oran lahaa bulshada sina u wacyigelsan tahay oo wixii wax ka warqabtaa laakiin inay fuliso ayada iyo maamulkeedu waa u dhiman halista caabuqani iyo dayacan ka jira bulshada iyo magaaladani Cabudwaaq ayaa ah mid guud ahaanba ay kala mid yihiin deegaanada galmudug ayadoona ay keeni karto saameyn ballaaran oo uu ku yeesho caabuqani bulshada deegaanadani sida uu ugu yeeshayba dalal badan oo naga taxadar iyo horumar badan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay dib u soo celin doonto muwaadiniin kuweeda oo ku xaniban dalka Sacuudiga sida warbixinta warkan oo inoogu eegayo wariyahayaga sida Galiyax Bulwade wasiirka wasaaradda caafimaadka Fawsiya Abikar Nuur oo sheegtay in ay dowladdu ku howlan tahay inay dalka ku soo celiso muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayiran Sacuudiga iyo dalal kale sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay la soconayso xaaladda muwaadiniin ku xayirnaa dalka Turkiga oo dalka dib loogu soo celiyay dowladda waxay wadaa dadaal aad u tiro badan maadaama tirada soo kordhayso in la raadiyo isbitaallo kale oo aan martiini ahayn oo lagu daaweeyo haddii alla idmo waxaa xalay la keenay diyaarad Turkiga ku xayirnaa dad badan oo Soomaaliyeed oo xalay lagu guuleystay inay yimaadaan dadkaas waa laga warqabaa waa dad intooda badan soo sameeyay kulligood soo sameeyay isbaarid oo iska soo baaray cudurka coronavirus kadibna la soo qaaday dadkaas guud ahaan koraa laga ogyahay waxaa la haayaa contactigooda wax allaale wixii service adeeg caafimaad ay u baahdaan diyaara loo leeyahay ilaahay naga haaya lacalla haddii loo baahdo in la test gareeyana mar kale waa la test gareyn karaa waxaa kaloo jira dowladda Soomaaliya waxaa soo gaaray in dad badan oo Sacuudiga ku xayiran iyo meelo kale adduunka kamid ah ku xayiran inay isu diyaar gareynayso inay keento oo ay waajib ku tahay in muwaadiniinteena meelaha qaarkood ku xayiran la keeno dadaalka aad u badan yahay diyaaradda shalay timid xoogaa waxay wadaa daawooyin iyo reagents loogu talagalay qalabka wax lagu baaro wali lama furfurin dhalinyaradii ka shaqeynaysa wasaaradda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ilaa aana ku mashquulsan waxaa bilaaban doona birri haddii alla idmo
haddii ay macquul noqoto isku aado wax walba waxaa bilaaban doona in xafiiska ra-iisul wasaaraha khubaraha WHO ka tirsan iyo wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso in la aadi doono gobolada maamul goboleedyada maamul kastana la tegi doono lasoo assess gareyn karo waxyaalaha ka dhiman waxyaalaha ay aan ku kaalmeyn karno wixii qalab oo laabka ah ama waxyaalaha PPE laisku qofka bani aadamka ka shaqeynayo isbitaalada ama shaybaarada uu gashan lahaa oo isku taxadari lahaa wax allaale wixii lahaayo si loola qaybsado la soo ogaada xaalkooda oo guud ahaan maaragtay laga warqabo oo isku si loo isla socdo haddii alla idmo ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan aafadiisa inuu naga najeeyo inaan wada dadaalno oo qof walba oo bulshada ka mid ah uu wacyigelinta qaybka ka qaato in dadka waaweyn oo cudurrada raaga qaba la ilaaliyo xanaano gooni ah la siiyo in gacmaha mar walba la dhaqo saabuun iyo lagu dhaqo iyo wixii loogu talagalay nadiifiska in meelaha ciriiriga aan la tegin in qofka hadduu dareemo calaamadihii cudurka lagu sheegay inuu raadsado uu wacdo telefoonada toll free-ga oo meel walba ka furan uu wacdo oo uu raadsado wixii caafimaad waxaan ilaahay ka rajaynayaa caafimaad guud inuu siiyo inta cudurka qabta inteena kalena naga badbaadiyo dowladda ayaa qaaday tillaabooyin lagu xakameynayo cudurka COVID-19 ee dunida dhibaatada badan ku haya waxay muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay wadajir u qaataan talooyinka caafimaad ee qaybta ka ah dadaalada lagu xakameynayo cudurka COVID-19 sida galayax gulwade CWTV magaalada Caabudaaq bartamaha Soomaaliya shirkadda xooga korontada ee Beko ayaa waxa ay sheegtay in macaamiisheeda magaalada Muqdisho ay qiimo dhimis ballaaran u sameynayso sida warbixinta warkaan uu ku eegayo wariyahayaga Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galo kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen maamulka shirkadda korontada ee Beka oo sheegay inay qiimo dhimis u sameeyeen macaamiishooda sabab la xiriira xanuunka COVID-19 maamulka shirkadda oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay qiimo dhimis weyn u sameeyeen macaamiishooda isticmaasha maamulka shirkadda korontada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay qiimo dhimis weyn u sameeyeen macaamiishooda coronavirus awgiis waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan teeriya inta xal looga helayo caabuqa coronavirus oo bulshadii kala xanibay ujeedka qiimo dhimistan loo sameeyo wax walba hada kulli ujeeday leeyihiin ujeedka loo sameeyo qiimo dhimistani waxa weeyaan maarta in shirkadda Beko ay ka qayb qaadato culeysyada jira ee wadanka ka jira soo dhaweynta iyo maarta fadliga bisha Ramadaan ee lagu guda jiro oo ummadii ay soomayeen in maarta laga la qayb qaato cudurkan baan oo sameeyay ummadii maarta sameeyay oo COVID-19 ka ah oo ummadii meel walba ka saameeyay culaysyo badan ku keenay xaqi dhaqaalahoodii dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed ka soo gali jiray inta badan waa naqaana ummadda Soomaaliyeed waxa ugu badan oo wax ka soo galaan lacagaha la soo xawilo oo dibadaha uga yimaada meel walbana cudurkan ayaa saameeyay oo maarata ku sameeyay maarata ugu sameeyay inaan meel wax la diri kara wax walba fariisin ay noqdeen sida la ajligeed arrimahaas oo dhan markay eegtay shirkadda Beko waxa u soo baxday inay wax ka qabato dhinaca sicirka korontada waxayna maarata ay sameysay qiimo dhimis aad u ballaaran ayay sameysay sida aad maarata tabeelahan ku aragtaan ba shirkadda Beko ilaa xilligii la aasaasay waxay maarata sameynaysay qiimo dhimis maarata isdaba joog ah oo sanad walba ay sameynaysay sida aad ku aragtaan graafkan iga dambeeya aad ku aragtaan oo qiimo dhimista waxay soo martay korontadaani markii 2014kii la aasaasay shirkadda Beko halkii kilowatt waxa la iibinayay oo maarata korontada la iibinayay 1.2 $1 iyo 20 senti ayaa la iibinayay markii shirkadda Ilaahay mahadii shirkaddan Beko ay soo gashay oo la aasaasay markiiba waxa laga dhigay qiimaha sida aad aragtaanba waxa laga dhigay 2015kii waxa laga dhigay 0.79 senti ayaa laga dhigay sanadkii ku xigay oo 2016kii waxa laga dhigay 65 senti sanadkii ku xigay oo 2007dii waxaan hadana ka dhignay dhibic 55 senti ayaa laga dhigay
sanadkii 2018 waxaa laga dhigay dhibic 48 senti hadda dadku waxay korontada ku haystaan ama macaamiisha beeko ay korontada ku haystaan waa 48 senti haddaba annaka oo maaragtay haddana tixgelinayna culeysyadan aan soo sheegnay oo badan oo cudurkan ummadii maaragtay dhaqaalihii aafeeyey ummadii maaragtay wax badan dhibaato badan dalkeenii iyo dibadda iyo caalamkaba ku haya annagoo fiirinayna ayaa shirkadda beeko waxay garatay inay mar kale sii dhinto qiimaha shicirka korontada waxayna laga bilaabo 1 bisha May ay qiimaha shicirka korontadu ee halkii kilowatt uu noqon doonaa 36 senti ayaa halkii kilowatt noqon doonaa laga bilaabo 1 bisha May. mawlid jaamac faarax mawlid galwaaq warbaahinta CW magaalada Cabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya. warka telefishinka caalamiga ee Cabudwaaq TV ayaa daawadayaal daawanaysa magaalada degmada Balad Xawey ee gobolka Gado ayaa waxa ay beeniyeen shakhsi la sheegay in laga helay caabuqa coronavirus gudaha magaaladaasi Balad Xawey. mar kale waxa warka inoo faafaynaya wariyaha Galwaaq. gudoomiyaha degmada Balad Xawey Axmed Barasheekh ayaa gurigiisa ku booqday nin looga shakiyay in uu qabo caabuqa coronavirus oo muddo 15 maalmood ku karantiilnaa guri ku yaala degmada Balad Xawey. ninkan dhalinyarada ayaa ka yimid gudaha dalka Kenya waxa uu la socday bas ay saarnaayeen tuhmanayaal kale oo loogu karantiilay gudaha Mandheera waana tan keentay asagoo Balad Xawey u soo gudbay in magaalada loo galiyo in uu qabo caabuqa coronavirus taas ayaana noqotay inuu gurigiisa ku karantiilmo oo uu yaraado la macaamilkii bulshada. maamulka degmada Balad Xawey oo ka duulayo in la shaki bixiyo dadka deegaanka iyo in ninkan dhalinyarada uu dib u helo xorriyadiisii dhaqdhaqaaq iyo la macaamilkii bulshadii ka shaki qaaday ayaa bulshada u cadeeyay in xanuunkan uu ka badqabo ninkan dhalinyarada. gudoomiyaha ayaa sheegay in Balad Xawey aysan joogin xataa qof looga shakiyay caabuqa coronavirus iyo mid uu ku dhacay toona. bismillaah alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan maanta joognaa xaafadii reer Boorkariye oo maxaa la dhihi jiray maalinkii bishii saddexaad labadeedii wiilkii ka soo baxay baska Nairobi soo raacay kaas oo warar iskhilaafsan ay soo sheegeen oo dhaheen waxaa laga helay baski dad coronavirus qabo wiilkana suspect ama shaki laga qaaday muddo bil ah ayaa cid lagu hayay wiilkii waa kan magaciisa waxaa la yiraahdaa Ali Yaasiin ma sha Allah wax coronavirus oo qabo ma lahan waa kan aan salaamayno wuxuu qaatay muddo bil ah waxaan cadeynaynaa in Buula Xawey sidaas ay nadiif ku tahay wax suspect ama wax shaki ah ama wax coronavirus ana uusan ka jirin baski kuwii laga helayna aanay jirin wax maanta cudurkaas waday oo calaamado ama cadeyn loo helay sidaa daraadeed waxaan Buula Xawey ku cadeynaynaa daba iyo dacal inaanay jirin wax coronavirus la yiraahdo iyo wax looga shakisan yahay toona waana nasri ilaahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin aniga iyo taliye xasilinta iyo dhammaan ciidamada qaybaheedii kala duwanaa waxaan soo booqanay maanta guriga iyo xaafadii waana la caafimaad qabaa waxaanan cadeynaynaa inaan cudurkaas uusan ka jirin xaafadda ay nadiif ka tahay coronavirus ilaahay baana ka magan galnay ku soo dhawaada reer Buula Xawey Soomaaliya iyo caalamka oo dhanba. Sayid Ali Yaasiin Boordag oo aan ninkan dhalinyarada ayaa sheegay in muddo bil ah ay bulshadu isla dhexmaraysay in uu haleelay caabuqa coronavirus taasi oo ah been aan sal iyo raad toona lahayn. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan maamulka degmada mas'uuliyiinta iyo timid aad baan ugu faraxsanahay waayo muddo adiga bil arrimo waxaa jirta in la leeyahay cudurka coronavirus baad qabtaa laakiin alxamdulillah ilaahay waxba iguma ridin aad baan u caafimaad qabaa waan ku faraxsanahay mas'uuliyiinteeda maanta inay soo booqdaan aad iyo aad ummadda kale muslimiinta dhammaan waxaan u sheegayaa inaan aniga wax cudurana qabin alxamdulillah ilaahay waxaan uga baryaa inta muslimiinta qabta cudurka coronavirus dunida baaxadeeda ku faafay inuu ilaahay caafimaad taam siiyo. Assalaamu alaykum.
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado oo yiri sidan saartaan waxaan soo booqanay xaafad wiil Nairobi ka imaaday soddon taariikhdii maxaa ku raasay saddexdii markay ahayd bishii saddexaad markay ahayd loogu shakiyay waxa lagu karantiilay guriga isbuuc markuu joogana ama 10 bari markuu joogana baaritaana lagu celi shakiga asaga ahaa oo laga shakiyay wax cudur waa laga waa waxa lagu soo celiyay gurigiisii bulshada reer Balaxa waa inta badan marka waxay istustay mar haddii ninka Nairobi ka imaaday la yiri cudurkana laga kala cararay waxa dhacday in gurigii dadka ay ka go'aan dariska oo soo salaamay goobta ganacsiga ay ku ganacsanayeen in la imaan waaya marka cidii waxa ku dhashay boorbaleem gaar ah waxayna maleeyeen in oo dadkii ay isu sheegeen oo ganacsigii iyo salaantii gurigiiba laga go'ay yarka duu bil joogay waxaan go'aansanay ka maamul ahaan inaan anigii soo salaano soo booqana haduusan asagii cudur qabin cidda laga shakiyay halka waxa ka dhalan karta dhibaato gaar ah oo ayaga naftooda istusi karaan waxaan leenahay reerkaani waa reer nabad qaba cudurka asaga ah oo la sheegay kuma jiro yarka laga shakina waa muddo bil uu hadda jooga isna waa caafimaad qaba waa kan hadda nala hadlaya reer Balaxa waxaan leenahay marka qofka cudurka Ilaahay u keenay kara waxa muhiim ah inaan cidda laga shakinin la karantiilin gaar aan loo xirxirin ganacsigoodii sida ugu socdo gurigooda sida loo imaanayo haddii cudurka uu jiro maanta annagii maamulka ahaa iyo saraakiisha ciidanka dhammaantanada waa salaan garabkaana qabanay haddana insha Allahu taala waxaan jecelnahay asna afkiisa ku hadlo wad maqlayseen cudurkan wuxuu ku soo baxaa leeri 10 bari markii la joogo ayuu soo baxaa haddii xataa waqti uu ku soo hayay ninka waxa leenahay marka waa in caafimaad qaba waa in reer Balaxa ah insha Allahu dhalinyaradiisa asagana dhaxka laga bilaabo saacadan annana waxaan u sheegaynaa inuusan cudur qaban bulshada Soomaaliyeed cudurkaasna waa cudur xun Ilaahay naga koriye ilaahayna degmada ma soo gaarsiiyay deegaanka Soomaaliya oo dhan Ilaahay maxaa gobolka dalka Soomaaliya oo dhan Ilaahay ha ka qabta gaar ahaan gobolka aan joognana Allah naga badbaadiyo Ilaahayna nama soo gaarsiiya qof hadda laga helay oo maanta u jiifana cudurkaas ma jira insha Allah taala waxaan jeclahay cudurkaas sidiisaba inuu hargab iska noqon doono dhamaan doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si kastaba ha ahaatee magaalada Balad Xaawo ayaa ah magaalooyinka ugu nugul xanuunkan maadaama ay ku taalo goob xaduuda oo inta badan ay ka soo gudbaan dad fara badan Mawlid Jaamac Farax Mawlid Galwa warbaahinta CW magaalada Cabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya guud ahaan badda wadayaal intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo hadahan oo kale aad ka daawataan shaashada caalamiga ah ee Cabudwaaq TV warka waxaan la socodsiinayay anigoo Ahmad Bashiir Ismaan Maadin intaynu warka aan warkii ku kulmayno waa dhamaantiin oo dhamaanteedin la sidaasii nabadgeliyo